السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قيمة بدن كسو دوادا مركلة يا مخالك لو قيمة بدن كدي مدة ديرو عن كما قناجنا الكيغا وحان إذن لاي حي صولة بشو عنا خيارتاي وحان رجينيا إنان هوري أسي ودنو جيدي يسو بندقدي مقالة دي آد إيغا براتين. fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan subscribe inoo saar muuqaalkana like saar qaybta hoose ee commentiskana inoola wadaag fikrigaaga iyo wixii dhiirigelina. maantay waxaan idinla wadaagi doonaa qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu layaabka badan ee dunidan soo maray. waad la yaabi doontaa qaarkoodna waxaad u aqoonsan doontaa mucjiso rabbaaniya halka kuwa kalena iyaga ay doorteen inay ka duwanaadaan dadka caadiga ah. waxaa caado ah in qofkii la imaado wax aan horey loo arag ama ka duwanaansho uu ka duwan yahay dadka kale lagu qoro buugga rikoorada adduunka. waa sababta keenta dadka qaar inay sameeyaan waxyaabo aan habbooneyn si ay u helaan aqoonsigaas. aan usoo laabano mowduuceeni. haddii aan bilaabo magacaabista qaarka aan soo xulay, nambarka koowaad waxaa ku jira Amu Hadid. waa 80 jir u dhashay dalka Iiraan. in ka badan 60 sano ma uusan maydhan ama ma uusan qabaysan. ninkan ayaa aaminsan haddii uu jirkiisa nadiifiyo in uu la kulmayo jirooyin ama cudurro halis ku ah naftiisa. sidaa darteed ay wasakhdu u tahay caafimaad iyo nolol. waxaa loo aqoonsaday in uu yahay shakhsiga ugu wasakhda badan ee dunida. rikoorkaas ayaa loo xiray. si aad u jabiso rikoorkaas waxaad u baahan tahay in aadan maydhan in ka badan 60 sano. waa cajiib. ninkan wuxuu degan yahay xaafad ku taala dalka Iiraan. wuxuuna ku nool yahay nolol ay tahay mamnuuc in la qabaysto, wasakhduna tahay caafimaad. waa siduu isaga aaminsan yahay. nambarka labaad waxaa inoogu jira Rolf Bighorst. ninkan wuxuu isku duray 543 bilood wejigiisa iyo guud ahaan jirkiisaba. ninkan oo u dhashay dalka Germany ayaa 40 jir ku bilaabay bedelida jirkiisa, isagoo markii ugu horeysay marsaday shabad ama tattoo. maalinba maalinka ka dambaysa wuxuu sii bedeliyay jirkiisa isagoo marsanaya tattoo ama isku duraya birar. 543daasi bir kaliya bishimihiisa wuxuu ku duray 150 birood, halka suniyihiisa iyana ay ku duran yihiin 37 bir. 34 ka midana wuxuu ku duray dhegihiisa. jirkiisoo dhan wuxuu ku xardhay tattoo iyo biro. quruxdii uu Ilaahay siiyay ay ku bedeshay foolxumadan. 2012 ayay ahayd markii lagu daray buugga rikoorada ee dunida, isagoo loo aqoonsaday shakhsiga ugu duriinka badan jirkiisa, yacni ku duray jirkiisa biro xad dhaaf ah. nambarka saddexaad waxaa ku jira Akshat Sasena. waa wiil da'yar ah oo ku dhashay mucjiso ay adag tahay in dunidan lagu arko. wuxuu Alle ku abuuray 34 farood sugeynta guud ahaan farihiisa. gacan waliba wuxuu ku leeyahay 7 farood, halka lug walibana uu ku leeyahay 10 farood. xili ay wareysi bixinaysay hooyadii dhashay cunugan yar ayaa tiri, markii ugu horeysay aan arkay wiilkeena waan ku farxay maadaama uu ahaa cunugeenii ugu horeeyay, balse markaan farihiisa arkay waan naxay. tani waxay la yaab ku noqotay dhakhaatiirta dalka uu ka dhashay wiilkan ee Hindiya iyo guud ahaan caalamka. waa mid ka mid ah mucjisooyinka Alle weyne subxaanahu wa tacaala ee dul saaran dunidan cajiibka leh. qofka afaraad, Francisco Domingo. ninkan ayaa ah mid leh af cajiib ah. 2011 waa markii lagu daray Guinness World Records, isagoo loo tixgeliyay shakhsiga ugu afka weyn. afkiisa ayaa ah mid sida laastiga oo kale ah, uu dhinacuu rabo u jiidi karo. cabirka afkiisa ayaa lagu sheegay inuu yahay 17 sentimitir. nambarka shanaad, Michael Lotito. wuxuu ku dhashay dalka France 1950. ninkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay nin biraha cuni jiray.
waa wax adag inaad aaminto, balse ninkan ayaa lagu sheegay inuu maalin walba cuni jiray ku dhawaad 900 oo garaam oo bir ah. intuu noolaa wuxuu cunay 18 baaskiil iyo tiifiyo iyo in kaloo aan ka baqayo haddii aad maqasho inaad cararto. waa waxay tiraahdaa Soomaalidu, hebel waa birlaqe oo run ah. ninkan agtiisa way ka sahlan tahay inuu afkiisa ku ruugo biro ama walxa adag. ugu dambeyn, ninkan biraha laqi jiray ayaa geeriyooday sanadka markii uu ahaa 2007. waxaan jeclaystay inaan halkan ku ekeeyo saaxiibayaal muuqaalkeena. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe inoo saar oo nagu soo biir. muuqaalkana like saar si uu gaaro asxaab badan. wixii fikriye faala ah iyo dhiirigelinba inagu reeb qaybta hoose commentiska. mahadsanidin dhammaantiin.